magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah uga furmaya shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhaxeeya dowladda federaalka, dowlad goboleedyada ka jira dalka iyo sidoo kale gobolka Banaadir. qabanqaabadii ugu dambeysay ayaa haatan ka socota Muqdisho, gaar ahaan teendhada Afasiyoni, iyadoo caasimadda ay haatan ku sugan yihiin inta badan hogaamiyayaasha maamulada, waxaana kaliya la sugayaa Dani iyo sidoo kale madaxweyne Goodlaw oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho. intiisa badan waxaa shirka diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka ee sanadkan 2021 waxaana gudoominaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. sida ay ogaatay Israac TV, madaxda ayaa si gaar ah markaa shirkooda maanta loogu lafaguri doonaa 4 qodob oo muhiim ah, kuwaas oo kala ah diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka, diyaarinta habraacyada doorashooyinka, raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka iyo sidoo kale dhamaystirka doorashada aqalka sare. ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay, waxaana nawaaxiga hoolka uu shirku ka dhacayo ku sugan ciidamo booliis ah iyo sidoo kale kuwa midowga Afrika ee AMISOM. shirkan oo uu dib u dhac ku yimid furitaankiisa ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo lagu guda jiro amaba la guda galay doorashooyinka dalka, gaar ahaan tan golaha aqalka sare ee Soomaaliya. doorashooyinka ka dhacaya dalka ayaa soo marayay marxalado kala duwan, waxaana isjiid dheer kadib heshiis loogu gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, taa oo lagu dhaqan galay isla markaana ay ku qabsoomeen doorashadii aqalka sare ee maamulada qaar, walow qaarkood ay qabiyihiin kuwa kalena aanay weli bilaabin.